waxaa mar kale cirka isku shareertay xiisad siyaasadeed oo u dhexeeya maamulka Galmudug iyo Villa Soomaaliya iyadoo khilaaf xoogan uu ka taagan yahay qaabka loo wajahayo doorashada maamulkaasi. Mas'uuliyiin ka tirsan ee Galmudug ayaa dowladda federaalka ku eedeeyay faragelin siyaasadeed iyo cadaadis lagu saarayo maamulka, halka Villa Soomaaliya ay sheegtay inay ka shaqeynayso mideynta iyo xasiloonida ee dalka. dowlad goboleedka Galmudug ayaa si adag uga hortimid in doorashada dhinac u janjeerta laga qabto deegaanadeeda, iyadoo ku adkeysatay in doorashadu ay noqoto mid ay ku wada jiraan dhammaan saamileyda siyaasadeed ee Galmudug. madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo markiisa labaad xilka u taagan ayaa toddobaadyadii dambe dadaal xoogan ugu jiray sidii uu xubno ugu yeelan lahaa guddiga doorashooyinka ee qaranka, arrintaasi oo la fahamsan yahay inay Villa Soomaaliya ka biyo diidan tahay. qaab dhismeedka guddiga doorashada ayaa noqday caqabada ugu weyn ee hareereysay doorashada ee Galmudug, iyadoo dhinacyada si weyn ugu kala aragti duwan yihiin cidda maamulaysa hanaanka doorashada. dhanka kale, agaasimaha hay-adda NISA Maxamed Salaad ayaa shalay wadahadallo gaara la yeeshay musharaxa Galmudug ee xisbiga GSB Liibaan Axmed Shuluq, waxaana kulanka ku wehelinayay odayaal iyo waxgarad ka tirsan ee beeshiisa. wararka laga helayo kulankaasi ayaa sheegaya in labada dhinac ay isku fahmeen arrimo la xiriira doorashada Galmudug iyo jihada siyaasadeed ee maamulkaasi. Maxamed Salaad ayaa sheegay inuusan jirin khilaaf gaar ah oo kala dhexeeya Liibaan Shuluq, isla markaana laga gudbayo dhacdooyinkii hore. isku soo dhawaashaha ayaa yimid kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Salaad ay wadahadal gaar ah ku yeesheen xaaladda Galmudug, isla markaana isku fahmeen arrimaha doorashada maamulkaasi iyo nidaamka habka iyo qaabka loo wajihi lahaa.